haysana ahay oo ilmo awow meesha ku hayso qornyaan soo xamaashaa meel faga ka keenaa qornyahaasaa ku noolaadaa waxba kale ma haysto raashin male waxaan haysto male qornyahaas baa ku noolaadhaa meelaha ilmahaas ku nooleeyaa duudka ku keenaa qoryahaasaa ku noolnahay wax kalohaas dhalinyaro oo sabaxayan doola ahaa dhaqaaleer oo wax ku baratan ma haysto cunto ma haysto ilmeeray dhasheen oo awoon hawltii wax dharay dhaqdaa wax ma haysto guri buushan degnahay saasa jirto aydiin qoryaal gagadaa qoryaalkii siis lacag bad madaxay ku sugannahay hooy ku yaala duraadka magaalada Muqdisho hooygaasoo ay ku nool yihiin walaalo aad u tabaalaysan oo haysta caruur agoon ah hooyo caasho waa hooyo waayeela oo daa sidaad arkaysaan ku nool duraadka magaalada Muqdisho xere ay ku nool yihiin barakacyaasha waxay aadaa duurka ayay aadaa deetana qoryihii duurka ay ka soo aruuriso ayay jiwaan ku soo shubtaa waa ay jibidaa kadib markii ay iibiso ama waxa ay ka hesho ayay caruurtaasi agoonta ah dabka ugu shidaa caruurta agoonta waxaa ka mid ah wiil 14 jir ah oo aragala oo markii hooyadii dhashay aragu beelay ilaa 14 jir soo gaaray maanta halkan fadhiya waana qoys aad u tabaalaysan hooyadii waatana ayadina waatana oo gacanta midig ayay naga fadhisaa hooyada dhashay caruurta agoonta waatan hooyadeedna ayaa dhinaca kala fadhisa waa qoys markaasi waalidiin ah oo hooyo iyo gabadheedii ah oo haysta caruur agoon ah caruurta agoonta ah waxaa dhalay gabadhan gacanteeda midig fadhisa ayaa dhashay garabka kale midig fiirnimo waxaa fadhiya hooyadeed intaa oo dhan waxaa reerka gacanta ku haya gabadha ayaa gacanta ku hayso waxay aadaa magaalada ayay aadaa dharka ayay xaafadaha ka soo dhaqdaa si ijaar ah wixii la soo siiyo ayay reerka dib ula soo laabataa oo ilmahaasi dabka loogu shidaa hooyadana waxay samaysaa ayayda waxa ay samaysaa qoryaha markii ay jibido gabadheeda haddii ay wax soo hesho iyo haddii ay wax soo weyso qoryahaasi ayay iibgeysaa oo meelaha u iibgeysaa deetana markii laga soo iibsado ayay caruurtaasi dabka ugu